السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برشة الصومالية ملكست يجوان والسلامينا ان كسر دوادو ان سجل تيو حافظنا أركيسين ودقمة وجر حافظة ان مت كمدة ربنا إنا ورئيسنا ياسين عبد القادر ميا إنجنير كي وكسين أي هذا جورجي صورت تاعنا وكان جورجيسا ان يو علي أو كسيسين أسجنا جورجي دقيقة هاي ان مركب وحنا لنا هاي لما أنتين برشة الصومالية فضلا نكي معنا قفك أن معناها أن سمكرر كنا صار وحن ربنا إن حدقي هو ذلك الصومالية أولنا قريه أو تجنو حافظها أن تجنو ملكست أن تجنو إن شاء الله وربحنا بدن أيان معنا إذن ديار دونا إن شاء الله سولو هذا لا هي كسولو هاتان أن سجل تيب كسولو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت كحر سجل تيب وحن لا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد كسر هذا سجل تيوب سيدا هورين كوش شغلنا وعن تيدنا حدي هورا دلك الصومالي حلقي برسمات كي دولة محمد سيد بري إلا أي بربرك حدقها مركز يجوان قلوه وتيدنا سيدا هورين كاقبلنا قادنا ما أنت وحى مرتي نوعه ياسين عبد القادر ميا أسفع متقانين وحدقي هورا دلك كميدة ونصل إلى نادي مقدشو بربر كان أنا نصل إليه معناها ورسم دونا إن شاء الله سؤال هذا أنت كحر مركزنا وهذا لنا سمت كراك نوجد ذا كسول هذا ياسين عبد القادر ميا مركز ورئيسي سبورتيا أنت حقيقة سبلا بسم الله الرحمن الرحيم دمان وحن سلامايا بهوينت سبورتيا جعل dhammaantood inta jecel kooxda elman iyo kooxaha hore ugu soo dheeliba dhammaantood waxaan koleyta oo aan sheegaya goorta taariikhdeyda iyadoo kooban koleyta ma lasoo xus karo waa dheer tahay taariikhdeyda laakiin intii karaankeyga ayaan ka hadlaya yaasiin markii uu ku qaadanayay gaaneeska naadiga muqdisho aniga xilligaas barsimaadka waa soo joogay waana fiirsanay caartiina waxaa tahay xidig ku fiican qadka dhexe si aad ahna injineerka loogu yaqaano marka yaasiin xilligii oo naadiga musiibiya ku birtay ma xasuusan kartaa wallaahi waxaan ka xasuustaa koleyto waxaan ku biiray dhalinyaro ciyaaraha waxaan ka bilaabay xaafadda siimanka oo hadeer aan kala hadlayo ayaan deganahay meesha ayaan ciyaaraha ka bilaabay koob oo ka socday rabanaanka ayaan ka qayb galnay markaas kadib adina waxaan usii tilaabay kooxo kale oo xaafadaha ka mid ah kooxda inter iyo kooxda inter ladahaya kadib oo wadajirka dhisneed kadibna waxaa haddana u tilaabay ciyaaraha dugsiyadan dheeli dugsi sare ee wadajir ayaan u dheeli degmooyin laakiin ma dheeli degmooyin markaas rag naga weebayin oo dhalinyaro ah joogin laakiin ciyaaraha dugsiyadan dheeli kadib waxaan u gudbay heerka siida naadiga muqdisho waxaa igu soo barbaariyey abtigeyga shariif cali axmed shariifow ilaah u naxariisto kadib ciyaaraha meesha noo yar ayaan ka bilaabay kooxda seersi ayaan u noqday naadiga muqdisho kadib naadiga muqdisho muddo saan u joogay ilaa serbiyan ka naqday haddina saan u joogay haddii muddo 86kii waxaan naqday Serie A ciyaartooy 86-87 ayaan Serie A naqday 86-87 xilligaas aad ku biirtay xilligaas ayaan kor kadib sagaashankii waxaan naqday ciyaartooy xulka qaranka juniorka markaas jiray qaranka Soomaaliyeed oo macalin cabdi badiste iyo macalin German la wateen markaas ayaan ka qayb galnay ciyaaraha lagu qabtay oo Mauritius under 20 kadib ciyaaraha taas markaan soo noqday waa soo laabanay wadankan ku soo laabanay ciyaartii koowaad xagga waxay ku dhamaatay hal eber oo nalaga soo bari oo inta markii loo soo laabtay ciyaartii labaad lugtii labaad 2-1 ayaan ku badinay oo hal rigoor aan iska cunay 3 hadan ku badinay waa soo bixi lahayn sidaas ayaan ku hadlay kadib burburkii ayaa dhacay oo wadanka dagaal ayaa ka dhacay burburka kadib macnaha waxaa naadiga elman ayaa macnaha u dheereysay burburka kadibna
burbur kadib naadiga elman waa laga horeeyey, naadiyaal kalaa ka horeeyey sida Ancelotti waa beri iyo kooxda Hajis. waxaa ku xigay kadib kooxda Morris oo markaas jirtay aan ka mid noqday oo degadaha waxa ka dhisneed degada waqtigii Unisom. kooxdaas ayaan u ciyaari kadib waxaan u dheelay Hajis ayaan u dheelay. markaa kadib ayaan elman aan kusoo biiray laakiin sanadkii iyo wixii aga maqan. naadiga elman imise koob ayaa la qaaday Wallahi. mala dabaaldegtay wax badan mala dabaaldegtay injineer anoo kula kaftamaayo macnaha aad baad qadka dhexe ugu fiican tahay sida aad ah weliba nin qad dhexe kula mid ah ma soo marin dalkeena Soomaaliya burburka kadib oo injineerka ay ku bixiyeenba cabirka kubadda sida u dhibaysid kubadda sida ay yaraysid. marka Yaasiin dabaaldegyo badan mala samaysan naadiga elman. wallahi naadiga elman waxaa la qaaday dhowr koob aan la qaaday 3 koob markay u yartahay waa la qaaday ilaa ayaga waxay qaadeen aan jeclahay 6 koob markay qaadeen waxaan la qaaday 4 ilaa 5 aan la qaaday 3 hadii dadkan dambe iga qaadeen ma sheegi jiray laakiin 4 markay u yartahay Jan Daawud iyo Super Cup iyo ma Daawud ma qaadeen laakiin saan jeclahay laakiin horyaal Hajisna horyaal ayaan ka qaaday. aad iyo aad ay umahadsantahay Yaasiin. marka goormee naadiga elman aad macnaha kabaha iska siibtay oo kubadda aad joojisay? wallahi muddada aan joojiyey waa kuleta 95kii meelaasaan joojiyey saan jeclahay sidaan ku qiyaasahay 95ka ayaan iska joojiyey ciyaaraha. kadib waa xanuunsaday alxamdulilah hadda waa fiicnahay ilaa haddana waa joogaa laakiin training aan iska sameeya oo iskayga ah laakiin waa caafimaad qaba. Yaasiin injineer yaa ugu jeclay qaska dhexe yaa ugu jeclay cayaaryahanka ugu jecleed oo garabkaaga inuu ka dheera aad jecleed oo qad dhexe ahaado ama maaragtay iyuu ahay ma xasuusan kartaa ciyaartooyda xilligii bartamaadkii naadi Municipio ilaa iyo elman inta aad soo dheysay Hajis inta aad soo dhelaysay dhex ayay u badnaa kubaddaada sida aan jeclahay aniga. kubadday ilaa waxaa ugu jeclaa aad garbey ugu dheeli jiray sida Cabdibasid aad iyo aad sida Cali Mukuli calaamkuliya waxaa kale garbey ka dheeli jireen afey aad ugu jeclaa inay ka dheelaan garbeyga aadna xasan shuuti iyo makrani iyo kulli waa soo gaarsiinayaan afka hore iyo garbaha ay caawin jireen oo kusoo gaaray dad aan la soo kulmay oo isku koox noqonay waa aad daaficaaga dambena waa ku kalsooneed daaficii dambena aad aan u kalsoonaa sida Senegal Cali Korea Dacayey. marka Yaasiin cayaartii kugu adkeed ma xasuusan kartaa oo aad iyo aad kugu adkaatay Yaasiin inta aad soo joogtay barsimaadka noqoto burburka noqoto cayaartii kugu adkeed oo macnaha ma xasuusan kartaa xilligii ciyaartii ugu adkeed xilliga Hajis waxayna ahayd ciyaar kooxda afgooy lahay oo daawooyinka Ali Ibrahim ugu heshay waqti dambe ayaan 2 gool ka dhalay ciyaartaas ay ugu adkeed aniga ugu farxad badan macnaha xilli dambe ayaa heshay goolasha. Yaasiin Cabdiqaadir maya ciyaartooydii hore dalka joogo maanta fursad haysataa Sagal Tiyub waxaan leenahay markasta horta simid noo saara annagana ballan sida aan kaaga qaadnay waxaan rabnaa xidigii hore dalka oo dhan guryahooda inaan ugu tagno aan ku wareysano meesha sida xilliga kusoo biireen kubadda cagta ilaa iyo macnaha xilliga kabaha ay isaga siibeen waxaan jecelnahay inaan idin soo gudbino bulshada waxaan idin leenahay Soomaaliyeed markasto soo dhawaada. Yaasiin maxaa u sheegaysaa bulshada Soomaaliyeed ku dhageysanaysa kullet magaciisa saddexan Yaasiin Cabdiqaadir mayo laakiin waxaan ku magac dhahay Shariifow injineerka oo leeyahay yaska magacyo badan aan leeyahay laakiin kulleeto ciyaaraha uu qaranka waxa uu aad intii alman inta u dhereysay qaranka messenger ay baxay qaranka wallahi dhowr jeer aan baxay ma xasuusto intuu jeer ay tahay dhowr jeer 6-8 waan dhantay ilaa 10 oo ku dhowday qaran junior qaran zira ilaa Cameroon ilaa waxa guulaha ma ka soo gaarteen qaramada inta aad bixiseen wallahi qaramada wax guulaha ma ka soo gaarin laakiin
kooxda elman aan guul ka soo gaarnay ilaa 5 buundo aan gaarnay naadi ahaan marka horyaalka ay qaadeen horyaalka markaan qaadnay baxdeen aan baxnay 5 buundo ayaan keennay ayadoo noogu dhimnay hal dhibac inaan kusoo baxno wareega labaad saasaan ayaan kusoo harnay qarankana waxaan garbaheyga inay buuxiyaan jeclahay laaxiin fara badan oo ka mid ah cabdi john makaraan yu cali aad iyo aad waxaa ka mid ah senegal cali kuuriya iyo in kale oo garbaheyga buuxi jirto oo dhammaantood yaasiin waxaan fiirsanaya kulan macnaha cameroon ceer saxabtinimo u aadeen ma aqaano adigoo raacaya macnaha ninkii timaha badnaay sheeg oo isku sawirtay u dheeraaya cameroon cameroon waa wadan weyn kubadda cagtana aada ugu fiican xeeraha adduunkana 8 dhamaadka gaaro kulankaas ka waran 3-0 in laga badiyay umaleynaya ceertaas ka waran wallahi ciyaartaas aad iyo aad u adkeed koleyto anaga waxa ayn ciyaartooy aad u yiraaheen aadna dadaal badan guul ayaan halaas guul aan dhigi karnaa 3 gool ayaan keennay ciyaartooyda aan raacayna waxaa ka mid ahay falow zonka waa dheelay libro ka dheelay falowa centerkana la ahaa oo dhintay ciyaartooy badan oo waaweyn aan dheelaysa markaas cameroon ciyaartooyda qaranka soomaaliya markaas tabartooda waa iska yareed maadaama oo qarankeena uu dadaalay intaasuna soo gaarsiiyey inaan cameroon aadno iyadoo wadanka iyadoo iska ciif tahay oo waxay aado iyo kooxo badan iyo ka dhisnay markaas elman aad u wanaagsan markaas elman ciyaartooyda elman qaranka ayaga la magacaabi jiray ciyaartooyda qaranka badankoodna elman iyo naadiyo kale ay kamid tahay marka yaasiin anoo kula kaftamaayo yaasiin horta waa mahadsan tahay markii casuumad gaarta casuumad raashinka maxaa ugu jeceshahay wallahi casuumad markay gaarto raashinka aan u jeclahay malay iyo baastaan jeclahay malay iyo baasta marka yaasiin fanka macnaha adiga taageerayaal lehed xataa macnaha fanka heesaha u jecesha macnaha gabdho ha noqoto wiil ha noqoto dadka hore ha noqdaano kuwa dambe ha noqdaano xagga fanka macnaha heestay u jeceshahay inaad dhegeysato macnaha ee dhegaha ku dhaxan wallahi heestaas heesaa ma jecli laakiin aan iska dhegeysto aan iska dhaafaan jeclahay ee horteyda marto fanaan ama fanaanad fanaan waxaan u jeclahay luul jeelaani aad iyo aad maasha allah xasan samatar xasan aadan samatar ay ku talba maasha allah waxaan kalaan jeclahay killer allah naxariisto allah naxariisto maasha allah marka sagal tiyub bulshada ku xiran maxaa leedahay maxaa macnaha annaga sida aan balan u qaadnay xidigihii hore dalka soomaaliya guryahooda inaan ugu tegayno aan ku wareysanayno guryahooda ayaan ballan qaadnay macnaha xilli kubadda cagta xataa fanka xataa wax walba waa keenayna insha allahu yaasiin marka bulshada maxaa u baaqaysaa inay simidkaraka noogu dadaalaan simidkaraka noo saaraan maadaama aan macnaha maaragtay horumar aan sameynayno horumar macnaha xidigihii hore aan guryahooda ugu tegayno wareysi aan ka qaadayno horumar waa ayaga naftigeeda fanka naftigooda aan raadinayno guryahooda aan ugu tegayno marka yaasiin bulshada soomaaliyeed maxaad leedahay hal mar iyo 2 mar iyo 3 mar bulshada soomaaliyeed waxaan dhahayaa dhammaan sagal tuyub in la taageero waa dhalinyaro oo bulshada oo hadda kusoo beertay aan jecel inay horumariyaan dhalinyarada oo ciyaaraha ka fariistay iyo dhalinyarada hadda jiro dhammaantood inay horumariyaan ay dabagalaan ama ay faafiyaan ay jecel yihiin dhammaan sagal tuyub in la taageeraan jeclahay sagal tuyub inta isboortiga jecel iyo inta taageerayaasha noo in la taageero sagal tuyub soomaaliya oo dhan gacal dhacalantaas maxaa leedahay saxafigan hadda ku cusub macnaha saxaafinimadan saxaafi ku cusub oo alifkan wato inuu macnaha maaragtay caariyaanadii hore dalka raadiyo fanka raadiyo markastana inuu kulma jecel maasha allah dadkii hore macnaha alla kaalmeeyo sagal tuyub wariyahan cusub macnaha simikaraadka gacal simikaraadkiisa ayaa la taageero lagu dadaalo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin sagal tiyub waxaan idin leenahay
bulshayahay nacaawiya fadlan subscribe noogu dadaala wax walbo xataa fanaanka kuwa joogo dalka soomaaliya xaafado badan loo adeegay doonaa holaag ay kamid tahay hodan ay kamid tahay waaberi ay kamid tahay xamarjab ay kamid tahay aya 17 degmo inaan kusoo wareegno xataa meel aan mari jirtay inaan aragtiin ayaan maaragtay aan ballan qaadaynaa idinka waxaan ugu caawisiin subscribe-ka noogu dadaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan idin leenahay soo dhawaada dhammaantiin soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan